jeedinaya dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland meel ay joogaanba gudadiyo dibadba xuska 23aad ee munaasabadda qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May waxaa si gaar ah hambalyo ugu diriyaa geesiyaasha ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee har iyo habeen heeganka ugu jira difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr iyo 20 sanadooda ayaa maanta ka soo wareegtay markii qarankani la soo noqday madax banaanidiisa taasoo loo soo galay halgan dheer oo naf iyo maalba leh halgankaasi ma aha mid wala dhammaaday balse waa mid soconaya ilaa inta aynu ka xaqiijinayno hadafka iyo himilada dhabta ah ee aynu leenahay kaasoo aynu higsanayno inaynu helno aqoonsi buuxa aynu kana mid noqonno qaramada madax bannaan ee qorraxda dunida uga soo baxdo xorriyadda aynu naacawdeeda ku nafaxadsanay maaha mid ku timid hawl yari iyo hadiyad toonna hase ahaatee kumanaan qof ayaa naftooda ku waayay burbur barakac iyo hanti badan ayaa ku baabaaday sidii dib loogu yegleeli lahaa qaran xora oo qolqolkiisa laga qodax tiray dulmi digtaatarnimo iyo awood dowladnimo oo la isugu adeegsaday waxaa leenaanaheedna waynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dhammaan dadkii ku geeriyooday halgankii dalka dib loogu xoreeyey intii ku dhaawacantay iyo agoomahina waxaanu rajaynayaa caafimaad iyo nolol wacan haddii aan dadka qaar caad iyo ciira ka saarayn tahay waxaan u caddaynayaa in go'aan-isutaagga Soomaaliland ee maanta baarka ka jaray 23 gow ah aanu ahayn wax salka ku haya cali caatifad hase ahaatee tani waxay ka markhaati kacaysaa inuu go'aankani yahay mid gaamuray oo ka tarjumaya rabitaanka runta ah ee shacbigiisa sidaa darteed qadiyadda baxbaanida ee dalkani ma aha mid marnaba gorgortan cid kale gelayso muddo kasta oo ay qaadanayso meelmarinteedu waxay dadkani diyaar yihiin inay u dhabar adeegaan dhiig horlena u daadiyaan dhammaan shacbiga Soomaaliland ayaa guulaystay gobolnimaduna waa galad u soo wada hoyatay inkastoo ayna soo wajaheen duruufo iyo dhaqaabooyin badan aan yaraynin haddana ummad ahaan waynu guulaysanay oo dharaarca ayaynu kaga dhabaynay wixii aynu aaminsanayn waxaanu dhidibada u taagnay qaran iyo dowladnimo ku dhisan dhaqan aynu ka dhaxla awoowayaasheen nabadgelyo dhowrista xuquuqa aadamaha iyo nidaam siyaasadeed oo doorashooyin xor iyo dimuqraadiyad dadab u tahay taasoo dunida in badan inagu majeerato inagagana daan karto midnimada qaranka walaalayaal Soomaaliland waxay ku soo cawiye caana maashay halka ay maraysana ku soo gaadhay iskaashi nabad tawfiiq tala wanaag iyo isu tanaasub aada wanaagsan oo la gooyo cara allay leedahay sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan golayaasha qaranka axsaabta qaranka madaxa dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan bulshada midnimo isku duubni iyo wada jir marxaladan adag ee aynu ku jirno waxaa laynooga baahan yahay inaynu kaga gudubno isu dulqaadasho wadaniyad bisayl siyaasadeed iyada ay waajib tahay inaynu meel uga soo wada jeesanno difaaca dalkeenna iyo xaqiijinta qarannimadiisa anagu munaasabadan uga faa'iidaysanaya waxaan si gaar ah ugu bogaadinayaa mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka axsaabta mucaaradka ururada aan dooliga ahayn iyo haweenka weynaha doorka ay ka qaataan dibudhiska dalka dowladdan oo tii horumarka iyo waxqabadka waxay gacanta ku haysaa mashaariic kala duwan oo laf iyo dhabar u ah
kaabayaasha dhaqaale iyo adeegga bulshada qaranka haddaba far keli fool ma dhaqdo waxaan ku boorinayaa dhammaan shacbi weynaha iyaga in iska iyo garab taagaan si hagar la'aana noogala qayb qaataan waxaan leeyahay daawanayo waa dalkaagii sidoo kale waxaan soo dhawaynayaa dhaliilaha dhabta ah ee maamulkayga loo soo jeediyo waxaa iga go'aana inaan gufayo godololo kasta oo qarankan beesha caalamka iyo dalalka dariska waxaan ugu baaqayaa wadamada beesha caalamka inta xiriirka wada shaqayntii naga dhexeeyo iyo inta kaleba inay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tashiga shacbiga Soomaaliland xaq u leeyahay xukuumaddu waxay sii xoojinaysaa wada shaqayntii iskaashiga dalalka dariska si gobolka Geeska Afrika uu noqdo منطقة نبتقلية تاسو شعوبتون يسوه لوبان كان فائدستان فرصة سويدارسيكا كنعسيكا إيا أقوانات وحان مهدنقية بغالي مدرية تلالك نقرأ شقية ديمقراطية نبتقلية إيا إسكاشيكا تقالة والله يا سوماليا وحان الله رحي هير دنبو قورا تدا درتين وحانو تشرني ووان اسكو تشرني dalka iyo dadka aan madaxda u hayna idinma soo socdaan ilaawiya idinku ku aqalayaan isku tashada walaalayaal awrkii lamada iyo dhibaatada lahaa ee aanu 60kii idin keenay isagoo cadaysima ayaanu la noqonnay aan kala aan la'aano si gobeedna aan u kala guranno waxaanu doonaynaa way caddahay waxaanu ka degaynaa in dib loo abuuro cadaawad iyo caabuqii colaadihii ina soo dhex maray xukuumadda aan garwareerka ka ahay waxay diyaar tahay in wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland la sii ambaqaado si looga gaadho maslaxad caam ah oo qowmiyadda Soomaaliyeed u horseedi kara inay ku wada noolaadaan nabad walaaltinimo daris wanaag salka ku haysta laba dawladood oo dan badan iskaga xidhan tahay waxaan bogaadinayaa dawladihii sida hagar la'aanta ah gacanta uga geystay qabsoomidda wada hadalkaasi haatanna diyaarka oo inay sii wadaan dadaalka ugu dambayn waxaa shacbigayga ku dhiirigelinayaa inay dhexda marada ku xidhaan siina labalaabaha dadaalka ku aadan ka midho dhalinta qadiyadda aada ka tashigeen waxaanuna inaynu heli doonno ictiraaf caalami ah balse waxaa laynooga baahan yahay dadaal iyo inaynu gacmaha isqabsanno waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadii Sheffield Council ee Somaliland garabka istaagay isla markaana aqoonsaday madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waa bilow horseed u noqonaya helidda aqoonsi caalami ah waxayna la ilaawi karin jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan Sheffield iyo guud ahaan dalka UK oo gacan weyn hawsha ka geystay hore ayaa loo yidhi tallaabo waxay ka bilaabataa hal tallaabo oo waxa inooga reeban nugay iyo niyadjab Somaliland ha guulaysato insha Allah waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan taasi ku soo gabagabaynaa khudbadda qaran maanta ugu talagalay munaasabadda qiimaha badan iminkii haatanna hogaamiyaasha ururada bulshada inay halkoogay ka sii wadaan hawshii maritaanka iyo dabaaldegga halkan lagu marayey marka waxaan ka rajaynayaa dhammaanba